fadhiga golaha guurtida ee maanta oo ahaa mid xasaasiyadiisu aad u kacsan tahay isla markaana ammaankiisa aad loo adkeeyay kadib markii golaha guurtida dhawaan loo soo gudbiyay mooshin muddada loogu kordhinayo xukuumadda madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka oo waqtigoogii ku eg yahay 6 bisha Abriil arrintan oo xisbiyaduna dhawaaqyo kulul oo diidma ah ka soo yeedhaan dhawaaqyo kulul oo diidma ah ay ka yeedhiyeen fadhiga golaha guurtida ee maanta oo ahaa mid xasaasi ah isla markaana ammaankiisa guud ahaan bal ilaaliyay jawigiisuna aad u kacsanaa isla markaana duruufaha hor yaalla ee waqtigan dalka ay ka hirgelinayaan uu ahaa mid aad taxadarkiisa u baahanaya xildhibaanadu ay subaxnimadii hore ee saakaba iska soo xaadiriyeen fadhiga golaha iyadoo ay yimaadeen xildhibaano in badan aan golaha ka soo qayb gelin isla markaana xanuun kaga maqnaa oo arrintan darteed loo keenay golaha jawiga golaha oo aad u kacsanaa ayaa waxa ka soo qayb galay dadweyne aad u tiro badan oo dibadda geedhka dambe ee baarlamaanka istubay iyadoo oo ciidamada ammaanka oo aad halkaasi loo soo dhoobayna ay dadka dib uga celinayeen howlka golaha guurtida ayaa iyaguna waxa soo buux dhaafiyay raxan ka tirsan xukuumadda Somaliland oo u badan wasiiro qaar ka mid ah xisbiyada mucaaridka ah iyo qaar kale oo ka tirsan xisbiga talada haya madasha oo aad dood la iskugu weydaarsanayay ayaa gudoomiyaha golaha guurtida Saleebaan Maxamuud Aadan Saleebaan Gaal oo abaara 9kii iyo badhkii subaxnimo uu furay golaha waxaanu xildhibaanada u soo jeediyay in arrinta hortaala ay tahay arrin xasaasi ah oo u baahan in laga fiirsado isla markaana uu ku xidhan yahay masiirkii ummaddu iyadoo oo uu u soo jeediyay xildhibaanada inay ka doodaan arrintan in ka badan 20 xildhibaan ayaa isu diiwaan geliyay sidii ay dood uga dhiiban lahaayeen arrintan ugu horreyna gudoomiyaha guurtida Saleebaan Maxamuud Aadan oo fadhiga saaka isagu furay ayaa sidan xildhibaanada ula dardaarmay ugu horreyn Cabdisalaan Maxamed Xasan oo ka mid ah xildhibaanada golaha guurtida ayaa isagu halkaa doodiisa ka dhiibtay xildhibaan Cabdisalaan kadib waxa isaguna halkaa doodiisa ka dhiibtay xildhibaan Siciid Cabdilaahi Yaasir oo isagu fikir ka duwan ka xildhibaanka ku dooday dooda ayaan halkaasi ku joogsan ee iyadu halkaas ka sii socotay waxaanay xildhibaanada oo midka kale ka afkaar duwan yahay isla markaana mid waliba fikirkiisa halkaasi ka dhiibanaya ay u sii socdeen sida tan markii ay dooda xildhibaanadu dhamaatay ayaa gudoomiyaha golaha guurtida Saleebaan Maxamuud Aadan oo xildhibaanada ka codsaday inay u soo jeestaan dhankiisa isla markaana ay si quman u dhageystaan hadalkiisa waxaanu gudoomiyuhu dalbaday xoghaynta golaha guurtida kuwaasi oo uu mar labaad ku celiyay in ay sugaan tirada golaha iyadoo oo tirada golaha fadhidayna ay ahayd 79 xildhibaan ayaa waxa la gudagalay in cod loo qaado arrintan iyadoo uu gudoomiyuhu u soo jeediyay in arrinta loo codeynaya ay tahay in muddada madaxweynaha loo kordhiyo taasi oo ka bilaabmaysa 6 bisha shanaad isla markaana ku eeg 29 bisha tobnaad oo loo kordhiyo muddo 6 bilood sida ay soo jeediyeen xildhibaanada qaar ka mid yihiin iyo inaan madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa toona muddada loo kordhin ugu horreyna waxa codka loo qaaday in muddada loo kordhiyo madaxweynaha iyo ku-xigeenka madaxweynaha muddadoodii dhammaatay markii ay xoghayntu tirisay ayaa waxa ay sheegay in ay xoghayntu soo gudbisay liiska gacanta u taagay arrintaasi taasi oo noqotay 78 xildhibaan balse gudoomiye ku-xigeenka labaad ee saddexaad ee golaha guurtida iyo qaar ka mid ah xildhibaanadii madasha fadhiyay ayaa dhawaaq kulul oo qayla ah halkaa ka jeediyey isla markaana codsaday in lagu celiyo tirada mar kale waxaanay dhacday sida tan labadaynu marnay hadday khalad ahayd waynaynu ka noqonnaa markii qaadistaasi muran gashay ay xildhibaanadu ka doodeen kana qayliyeen ayaa gudoomiyaha golaha guurtidu uu codsaday in dadka marti sharafka ay dibadda uga baxaan hoolka
balse ma suurtagelin arrintaasi waxaana dadkii dib loogu celiyey xagga dambe ee kuraasada marti sharafta taasi oo uu guddoomiyuhu soo jeediyey in mid mid loogu yeedhin doono xildhibaanada islamarkaana isagoo halkiisa fadhiya uu ka sheegi doono cid waxa uu taageersan yahay aakhirkii markii xildhibaanadii madasha fadhiyey oo tiradoodu dhammayd 79 xildhibaan mid loo yeedhiyey mid walibana uu halkaa ka sheegay inuu ogol yahay in muddada la kordhiyo iyo inaanu ogolayn ayaa guddoomiyuhu ku dhawaaqay go'aankii kaba dambaysta ahaa waa dembi qaran buu ka galay annagoo mar walba waxaan hadalkaaga ku soo gaabinaya waxaa sidaa ku soo xidhmay fadhigii golaha guurtida dad badan oo ka mida dadweynaha ku dhaqan magaalada Hargeysa iyo guud ahaanba shacbiga Somaliland ayaa arrintan firkanax iyo dhigataan ku soo dhaweeyay waxaanay noqotay arrin looma fadhi ah iyo lama filaan ku noqotay guud ahaanba shacbiga Somaliland ilaa haatan xisbiyada mucaaridka ah ayaanay wax afkaar iyo dood ay ka soo bixin oo ku saabsan arrintaasi taasi oo marka horeba ay mudanayaasha golaha guurtidu ka doodayeen in badan islamarkaana ay warwar badan ka muujinayeen muddada dibudhaca doorashooyinka oo ay xisbiyada mucaaridka ahi marka horeba ka walaaceen 31 May ee komishanku sheegay balse waqtigan xaadirka ah golaha guurtida oo awood u leh muddo kordhinta madaxweynuhu oo muddo 6 bilood dib u dhigay guud ahaanba ammaanka magaalada Hargeysa oo ah caasimadda Somaliland ayaa ilaa xalay toole aad loo adkeeyay tiro ka badan 4 wariye ayaa maanta loo taxaabay saldhigga dhexe ee magaalada Hargeysa wariye Axmed Saleebaan Duxul oo ka tirsan ilaacadda raadiyo Horyaal ayaa saaka lagu horkaxeeyay hoolka golaha baarlamaanka kadib markii laga diiday inuu halkaasi galo taasi oo ciidamadu inta ay garaaceen saldhigga dhexe ku xidheen Iban Maawel Shiro oo ka tirsan wariyeyaasha Somaliland isla markaana ah suxufiga update gareeya shabakada wararka ee Somaliland Future ayaa isaguna la xidhay waxa kaloo isagana la xidhay wariye kale oo ka tirsan wariyeyaasha Somaliland oo magaciisa la yiraahdo Abdi si kastaba ha ahaatee waxa laga dhursigu doonaa dhawaaqyada dambe ee ka soo baxa golayaasha baarlamaanka wakiilada iyo guurtida iyo xukuumadda Somaliland iyo sida ay u arkaan xisbiyada mucaaradka taasi oo la dhigay laga dhursigu doono dhawaaqyada ka soo baxa لما بنوقف بالهدايا